dhalinyarada koonfur galbeed kuntikiin dhamaantii waan islaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxa farxad noo ah dhamaantayo inaan meeshan ku soo dhaweyno dhalinyarada ka kala socota guud ahaan maamulka Soomaaliya oo ujeedkooda halkan u yimaadeen ugu soo dhaweyn ay tahay maalinka bariya ku beegan 12 Sebtembar aan doonayna inaan ku qaban halkan shirweyn dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga hadlayo maalinka nabadda adduunka mudanayaal waxaan leeyahay soo dhawaada halkan waxa ku soo waxa weeye gudoomiyaha qaranka gudoomiyihii dhalinyarada Hirshabeelle gudoomiyihii dhalinyarada koonfur galbeed iyo madaxdii dhalinyarada guud ahaan dhalinyarada gobolka Mudug runtii aad bay farxad noogu tahay inaan dhalinyarada mas'uuliyiinta si guud u soo wada dhaweyno dhacay meeshan gaalkacyo ka dhacay shir aad u weyn oo dhalinyarada Soomaaliyeed isku wada imaanayso oo ah maalinta nabadda adduunka annaga maadaama aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay noo tahay maalin aad u weyn oo muhiim ah qaasatan gaalkacyo oo ah magaalo nabadeed oo Soomaalidana aad looga jecel yahay sida wanaagsan oo fiican oo Soomaalinimada ka muuqato aan soo dhaweysay idinka mahad celinayna oo xilligan qorraxda awda taagan tihiin gaalkacyo aad u mahadsan tihiin waa isla joognaa waa is wareysan doonaa soo dhawaada